caam alfiil waa qiyaas ahaan 570 taariikhda miilaadigu markay ahayd, waxaana sanadaas dhacay mucjiso weyn. berigaas waxaa ka talinayay dalka Yaman boqor Abraha oo ahaa boqor Xabashi oo wakiil ka ahaa boqor Najaashigii ka talinaya Abisiiniya. Najaashi maaha Najaashigii aad wada taqaaneen ee magangelyada siiyey saxaabtii uu soo diray Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, balse waa aabihiis. boqor Abraha wuxuu arki jiray mar walba qabiilooyinka carabta oo isaga xukunkiisa hoos simaanayay oo sii boqolayay sanad walba dhinaca waqooyi una tegayay inay kusoo dawaafaan Kabcada. Abraha ayaa markaa kadib ka fikiray inuu sameeyo kaniisad weyn oo u dhiganta Kabcada oo ay ku dawaafaan qabiilooyinka carabta si uu lacag badan uga sameeyo. wuxuuna bilaabay inuu dhiso kaniisad magaalada Sanca, waxayna ku qaadatay muddo 4 sano ah. wuxuuna ugu baaqay qabiilooyinkii carbeed guud ahaan inay yimaadaan si ay ugu dawaafaan kaniisadan. wuxuuna ugu magacdaray kaniisadii Al-Qulays. qabiilooyinka carabta oo aada uga caraysan ayaa u soo diray nin ka tirsan reer Bani Kinaana oo isagu saxaro ku xardhay kaniisadii Abraha. Abraham oo arrinkan ka cadhooday ayaa wuxuu kiciyey ciidan aada u xoog badan, wuxuuna ku jiheeyey xagga iyo Kabcada, wuxuuna ku dhaartay inuu ka aargoosanayo Kabcada iyo qabiilooyinka carbeed. Abraha ayaa markii ugu horreysay adeegsaday maroodiyaal waaweyn oo isaga markaa uga dhignaa dabaabadaha hadda aynu isticmaalno, wuxuuna ka horreysiiyey ciidamadiisii, waxayna u dhaqaaqeen xagga iyo Kabcada. Abraha wuxuu ku talagalay in cid walba oo ka hor timaada qorshihiisa uu cagta marinayo, wuxuuna soo abaabulay ciidankii ugu xooga badnaa wakhtigaas, wuxuuna ku goodiyey inuu dhulka la simi doono Kabcada. laakiinse wuxuusan ku talagelin in Kabcada uu iska leeyahay Allah hakoonka abuuray, isaguna uu difaacanayo. taariikhyahanada islaamka ayaa sheega in Abraha ugu yaraan 20 marood oo isticmaalay duulaankan uu Kabcada kusoo qaaday berigaas. Abraha ayaa u diray nin ka mid a ciidamadiisa si uu la soo kulmo Cabdulmutalib oo isagu ahaa qofka lagala xaajoonayo Kabcada odayna ka ahaa. ninkii ayaa u yimid Cabdulmutalib wuxuuna u sheegay inuu rabo inuu arko Abraham oo hogaaminaya ciidamada kusoo duulay Kabcada. waxaa kaloo u sheegay Cabdulmutalib in ugu yaraan 200 oo ka mid a awrtiisii la qabsaday iyagoo safar ah oo Abraha uu gacanta ugu jiraan. Cabdulmutalib ayaa isagoo awrkiisii wata u tegay Abraha iyo ciidankiisii. Cabdulmutalib wuxuu la kulmay saraakiisha ciidamada Abraha oo u kaxeeyey xagga iyo teendhadii Abraham. Abraham oo la yaaban geesinimada odaygan ayaa waxa uu weydiiyey wuxuu ka codsanayo maadaama uu u socdo inuu baabi'iyo Kabcadii. Cabdulmutalib ayaa ugu jawaabay, waxaan rabaa inaad ii soo celiso 200 awr. Abraham oo arrinkan la yaaban ayaa ugu jawaabay, war waxa aan ku soo duulay waa Kabcadii iyo diintiinnii iyo gurigiinnii, marka ayaad igala hadlaysaa oo i weydiisanaysaa 200 oo awr, miyaydaan damiir lahayn? Cabdulmutalib ayaa si degan ugu jawaabay, anigu waxaan leeyahay oo aan mas-uul ka ahay 200 ee awr, Kabcadana Allah ayaa iska leh, isaga ayaana difaacanaya. Abraham oo arrinkan la astacjabay ayaa amray in loo soo daayo 200 ee awr. Cabdulmutalib markaa kadib waxa uu kaxaystay awrtiisii, wuxuuna ku noqday Kabcadii, wuxuuna ku amray qabiiladii carbeed inay faarujiyaan oo u cararaan xagga iyo buuraha. waxayd arrinkani qiso mucjiso ah oo la yaab badan, waana ciidamadii Abraha oo usoo dhaqaaqay xagga Kabcada si ay u burburiyaan. haddaba markaas kadib maxaa dhacay? Abraha waxa uu watay maroodiyo waaweyn. maroodyadii ayaa dabadeed diiday inay hore u socdaan oo u dhaqaaqaan xagga iyo Kabcada. askartii ayaa la rafaaday iyagoo isku dayay inay maroodiyaasha u jiheeyaan xagga iyo Kabcada, wayna diideen. maroodiyaashii oo jihada ayaa mar walba ka lumaysay markaa majaraha loo qabto oo la isku dayo in loo kaxeeyo. waxaana askartii isku dayeen inay xakameeyaan maroodiyaasha, laakiinse way u suurtageli weyday. waxaana dabadeed mar keliya uun lagu baraarugay oo la maqlay guux hawada sare isqabsaday.
waxaana soo kacay shimbiro raxan-raxan u socda oo loo soo diray inay gebi ahaanba burburiyaan ciidamadii cadowga ee isku dayayay inay burburiyaan guriga ilaahay. shimbirahan ayaa ku hubaysnaa dhagaxaan naara, waxayna ahayd taariikhda markii ugu horreysay oo samada laga soo diro gantaalo naara laguna duqeeyo ciidamo cadowga oo dhulka maraya. waxaana la sheegay inay ahaayeen dhagaxaan yaryar oo naar ah oo marka ay ciidanka madaxa kaga dhacaan xagga dambe ka baxayay oo gebi ahaanbaa qofka burburinayay. waxayna ahayd duqayntii ugu cuslayd abi ee xagga samada laga duqeeyo oo lagu xasuuqo ciidamo cadow ah oo dhulka maraya. markii arrinku xaggaas oo marayo, maxaa dhacay? mucjisada maalintaas dhacday allah korreeyey wuxuu uga warramay suurat alfiil, waxaana allaha jalaalada sharfani isagoo ka warramaya uu ku bilaabay ma aragtay sida eebba ku falay saxaaftii maroodiga ama culkii maroodiga. allah wuxuu ku qortay suuraddan isagu inuu soo diray shimbiro raxan-raxan u socda oo afka hore ee labada mijood ku wata dhagxaan naara oo sidii gantaalkii ugu baabiiyey ciidamadii cadowga ee isku dayay inay burburiyaan gurigiisa. taariikhyahanada islaamka ayaa isla qirayn ciidamadii abraham wixii ka haray ay dhexda ugu leedeen cudurro daacuun oo ku dhacay. abraham qudhadiisa ayaa la sheegay inuu dhintay cudur jirka uga dhacay oo markii dambe sababay in jirkiisu googo'o ilaa markii dambe wadnuhu ka soo dhacay. allaha caalamiinta jiritaankiisu bilow iyo dhammaad midna ma leh, meel gaara ma leh, sina ma aha, wakhtigu ma saameeyo, wax loo dhigo ma jiro. allah wax walba inuu malaysanayno waa ka bedelan yahay, waana adkaaday falsan. muuqaalkan waxaynu idinku tujirnay sidaa ugu macquulsan, laakiinse allah ayaa wax walba inooga cilmi badan. like oo la wadaag asxaabtaada.